kulan degdeg ah oo isugu yimid saakay golaha midowga musharaxiinta wuxuu soo saaray war-saxaafadeed ku aadan xaaladda ugu dambeysay ee wadahadaladii u dhaxeeyay midowga iyo ra'iisul wasaaraha iyo qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore dowladda federaalka ah. marka waan akhrinayaa war-saxaafadeedka. golaha midowga musharaxiinta wuxuu qayb ka ahaa wadahadal u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane maxamed xuseen rooble oo xal lagu raadinayay dhacdadii 19 Febraayo iyo ismariwaaga doorashooyinka heer federaal. wadahadalka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug, hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. wadahadalada oo laga gaaray isfaham horudhaca ayaa dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagneyd gaar ahaan magaalada muqdisho, taasoo abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhammayn karo ismariwaaga taagan. wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta khamiista ah ee bishu tahay 4 Maarso 2021 si loo sii dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira cidda yeelanaysa mas'uuliyadda hogaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka maadaama uu muddaxileedkii hay'adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday, kaalinta midowga musharaxiinta ay ku leeyihiin wadahadallada iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. waxaa nasiib darri ah in madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu si ulakac ah u hagaldaacinayo wadahadallada u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo midowga kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadallada u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta. haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka. dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaaharaadka uu ku dhawaaqay midowga musharaxiinta ee dhici doona maalin sabtiga ah ee 6 bisha 3 kaasoo ka dhacay daljika Dahsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku uu ahaa. goluhu wuxuu ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo beesha caalamkaba in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xal helidda geedi socodka arrimaha doorashooyinka. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.